khadka telefoonka waxaa hadda si toos ugu jira siyaasi cabdirasaaq miicaad oo kamid ah qurbajooga reer Somaliland oo hadda ku sugan dalka UK. cabdirasaaq maalintii shalay ayuu bartiisa Facebook kusoo qoray post uu kaga hadlayay arinka boqor buur madow. soo dhawow cabdirasaaq. cabdiraxmaan waad mahadsantahay dhammaan shacabweynaha Somaliland waan salaamayaa. arrintaas way jirtaa waxa weeye arrin duulaan ah oo uu boqorku ugu talagalay in Somaliland lagu wanjalo. arrintaas waxa weeye dadka ninba si buu u arkayay, laakiin nin criminal oo terrorist oo argagixisa ah oo hargeysa ku laayay ummadan madaxtooyadii lagu Somaliland oo ummad ku laayay koonfurta Soomaaliyana dad muslimiina iyo caruur iyo udheelo ku xasuuqay oo adduunku eegayo meeshu cidda sheegata iyo cidda tolka u ah ilaa ninka argagixisadu tol ma lehe ayuu jeebka ku soo qaatay ciddii u soo dhiibtay mooj ninkii aynu ku ogeyn inuu madax dhaqameed ahaa oo dad ku dhex jiray ayaa wuxuu yiri ina godane waa in adeerkayo annaga ka mas'uula horena tuun hore uu jirayo isaga laftigiisa iyo dad kale ba lala xiriirinayay. Somaliland waa dal nabadgelyo leh, argagixisada shaqo kuma leh, ninka argagixisadina tol ma laha, cidna ma sheegto. sababta aan ula yaabay waxa weeye adduunkii wuxuu ka qaatay wararkii BBC da Somali BBC iyo Voice iyo hadal lahayntii weyneed waxay gashay wax la yiraahdo shaki in Somaliland la yiraahdo baba boqoradii ugu waaweynaba u tacsiyay inuu godane una doodayana kuna faanaya inaan xamar dawladda jirin ay shabaab ay dawladahay. dadka dhaqankii waxaasoo kale kuma hadlaan. ninku hadduu ajanta kale leeyahay sumcadda Somaliland uu ku ciyaaraya ninkani waxa uu u tagay koonfurna oo xamar u tagayna waxa weeye dhaqaalu qaatay dhaqaalihii la rabay in Somaliland lagu shaabadeeyo ayuu halkaa ka sheegtay inuu godane waa dhintay argagixiso ah Mareykan baa dilay. waxa maanta loo soo jadiidiyay axbaash looga soo saaraya waxa weeye inuu Somaliland iyo adduunka tuso inuu ninkaas Somaliland ka yimid oo ay taageersan yihiin. marka aad baan uga tacsiyadaynaya dadka aan garanay ee moodaya siyaasad kale ee ka hadlaya isku xiraya dowladda Soomaaliya ee dagaalku naga dhaxeeyay ee burburtay iyo maanta isku xiraya ina godane waa argagixiso ah. adduunku waa raadinaya ciddii soo hadal qaaday iyo ciddii comment ka bixisay iyo ciddii meel la tagtayna iyo wadankii taageerana waa la daba socdaa. waayo ideology-gu aaminsan yahay muufaaneen kumaanku qof oo dhintayna hortooda kama yiraadeen waa in adeerkay ama waxa weeye waa taageersanahay ama waxa weeye waa ku faanaya laba dawladood oo dira ayaa haysta. adigu hadaladiisii adduunka meel kasta way ku jiraan, Google way ku jiraan, adduunkuna wuu daba socdaa hadalkaas meel inaanu la tagin. waxaana aan iri hadalkaas wuxuu yaalaa dawladda Soomaaliyana iyaga ayaa ka sii liita boqor buur madow sababtoo ah wasiiradii la taagnaa hadday ka xun yihiin oo diidan yihiin oo mishinka meesha ku jirin lama istaagin. wasiir baa dhinac taagnaa dawladda iyo xiriirlaaliyay guud wax talaabo kuma ay qaadin. marka kalsooni uu dawladda isku haysto oo waxa loo soo dhiibay oo mishinka loo soo dhiibay oo hadalka ku yiri ayaa meesha ku jira taa la baaro. waa tahay cabdirasaaq waxaad ku tilmaantay boqorka inuu yahay dambiile. maxay tahay sababtaad ugu sheegtay dambiile iyadoo aan wax maxkamada la marin? dambiile wuxuu ku yahay horta dawladdaas oo isaga uu la joogo maanta ayay ku xidhatay inay qabato. nin argagixisa ah markaad ayidsan tahay ama aad talaabadiisa ku socotid
amaba aad tiraahdo waxbaanu isu nahay ama aad tiraahdo allah u naxariisto amaba aad condemn garaysaa tiraahdo waxa eg dadka waxa la yiraahdaa waxa ninka ideology-gu aaminsan yahay ama hadalhayntiisa amaba qiireeyo wuxuu sameeyo waa argagixiso waay ninkani video la soo istaagay oo ummadan oo baabi'iyey gaal iyo muslimba ninkani wuu dilay marka magacii Somaliland wuu sitaa hadduu Somaliland yimaadana ha la xidho adduunka meel uga dhoofi karayaa oo uu ku bixi karayaana ma jirto waan maqlayaa inuu apologize bixiyey laakiin apologize-ka kuwii hadalka u soo dhiibay baa apologize kale u soo dhiibay waay kuwa apologize-ka u dhiibay ayaa apologize-kana maanta u soo dhiibay marka waxaa leeyahay boqorkaasi yaa siyaasad kale loo arkin yaan marka bari laga hadlayo galbeed laga hadlay aan dhegaysanaya in Cali Waraabo ka hadlayo leh dawladii iyo dad baa caynka lahaa waa is a different ninka dagaal oogaha ah iyo ninka argagixisada ah waayahay waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Miicaad oo nala soo xiriiray isla markaana nagula soo xiriiray khadka telefoonka isagoo ku sugan dalka UK Cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay